Soomaalidan been badana war Soomaalidan been badan assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh kusoo dhawaada YouTube channelkeeda Soomaali Tijaabtooniko maanta waxaan rabaa inaan ii sheego maxaa ka jiro hadalka Soomaalida ee maanta la isdhaxwaday oo la dhahayo dagaxa maanta wuxuu kusoo dhacayaa Muqdisho gaar ahaan gobolka Gado iyo Nugaal waliba saacadu markay tahay 8 saac war Soomaalidan been badana war Soomaalidan been badan yaa u sheegay wayda inuu kusoo dhacayo 8 saac horta mid ogaada kuwa Facebook soo qadayo soo qoray maanta dagaxa soo dhacaya 8 saac soo dhacaya wadankaas ku soo dhacay waligood waxaas uu aqrin waa beentood hal xaba ka jiro malaha waa beentood waxaas inuu aqrin dagaxaas xiliyo soo dhacay laakiin ilaaha og muuqaalka si hoogay waxa kala hadlay dalalka loo shiksan yahay inuu soo dhaco keebta hoosta isrishikinka dib soo dhigay soo daawada marka waxaan sheegayaa muuqaalka soo gal waxay tahay muuqaalkan degdega u duubaya warka Soomaalida ay sheegayaan waa been dagaxaas deesac ma soo dhacayo ilaahna kuriyo inkastoo shiinaysta dhaheen maalinta sabtida ayuu soo dhacay maalinta sabtida haba waa maanta 8 saac soo dhaca waxaas been waa yaa rumaysan dadka Facebook soo qorayna waxay rabaan dadka inay waalaan ee cabsiyaan waxa leeyahay ummadda islaamka yaa la cabsiin waa bir Ramadaan ummadda islaamka ma kana ka cabsataa mise way cibaadeysataa ma leelatul qadr ma ka cibaadeysataa ama waxay ka cabsataa dayax maxaa lii jiray gantaal ilaahna badbaadiyo warkiyaa rumaysanin ilaah iska tala saarta quraankiina akhriya ducadina akhriya insha Allah waxa badisiin ducada leeyahay Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ducadaas hala badiyo halaga duceysto inuu soo gaaro insha Allah mas ayaan gitagay assalamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh yaa rumaysanin ummadda Facebook waxaas ku soo qorayso assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh